haddaba stuudiga waxaa ila fadhiya Faarax Mucallim gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo dhawaan safar ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya mudane soo dhawaaw muxuu ku saabsanaa safarkaagii magaalada Muqdisho aad ku aaday safarkaygu wuxuu ku saabsanaa inaan wadankana soo arka kulli Muqdisho aan soo arka la wadanka Muqdisho kali maaha laakiin waa meel tusaale laga qaadan kara isbedel wixii ka dhacay tan iyo waqtigii ugu dambeysay xagaan joogay oo sanad ka soo wareegtay in madaxdana aan dhowr la kulmo meeshii aan darso wixii tala iyo tusaalana aan isa siino runtii niyad fiican ayaan kala soo noqday isbedel weyn oo aad iyo aad uga ballaaran markii ugu dambeysay ayaan arkay rajada Soomaalida iyo rajadaanadan waxaad moodaa inay soo noqon hayso in yar baa soo noqoto oo xawli uma soo noqon hayso laakiin wax badan ayaa maaragtay qabsoomaya hadda aan isleeyahay muddo yar gudaheed بإذن الله الباري Soomaali sharafteedii iyo maxay ahayd qabkeedii wixii dhan buu soo noqon doonaa si fiican qaar kamid ah warbaahinta aad waxay u hadalhayeen siyaabo kala duwan ee safarka ay ugu hadleen qaar baa waxay aaminsan yihiin in aad halkaas ka wada olole ka dhana maamulka Jubbaland oo madaxweynaha uu ku jiro madaxweynaha Jubbaland Madoobe arintaas maxaa ka jiro horta aniga Soomaaliya say u burburtay 1991 iyo hadda inta u dhaxayso wax allaale wixii aan isleeyahay lid bay ku tahay Soomaali mise wixii aan isleeyahay in laga wada hadlo oo laga munaaqashoodo la istuso oo maaragtay la isu tilmaamo ololahayga wax maaragtay safar ku xiran maaha ololahayga meelan joogo dhanba wixii aan isleeyahay dhanba ugu jirta ummadda Soomaaliyeed sida ay sharafteedii qarannimadooda ku soo noqon lahayd waan markastaba ra'yigay waan ka dhibanay marka haatanna uma tagin Jubbaland iyo maaragtay mise gobol kale oo maaragtay Soomaaliya ka tirsan uma tagin ma aha inaan fikrado ka qabin afkaar aanan ka qabin inta ay ka tirsan yihiin oo dhanbo saad ogsoontahay anigu maamul gobollada Jubbaland Puntland maxay ahayd koonfur galbeed kulli fikrad baan ka qabaa in maaragtay runtii ay maamuladoodii iyo madaxweyneyaalkooda sidii la rabay wadanka in qarannimadiisa iyo sharaftiisa loo soo celiyo oo Soomaali intay garbaha gacmaha isqabsatay ay qiimahooda soo ceshtaan inayan ku jirin oo qayn wadannimo ay ku jiraan haddana waxay bilaabeen inay dad kale oo ajnabi ah ay camiil u noqdaan ha noqoto maxay ahayd imaaraadka ha noqdaan maxay ahayd wixii kale oo la halmaago oo imaaraadka iyagana dabada ka riixaysay Sacuudiga oo kale ha noqdaan dad ashkhaas sidii Eric Prince iyo wax la midka ah oo dhanbo waxa weeyaan dad maaragtay khaan wadankii baabiin hayo inay yihiin oo iska caddahay Soomaalidana way aragtaa ana waan arkaa ana wax badan ma afkaartida ka dhibtay مثلا Jubbaland hadda adiga aad sheegayso waxaan maleeynaa Axmed Madoobe tan iyo ayaantii maxaakiimtii aqoon baan suleen aniga inta maaragtay inaan garab qabta aan isku dayay hadda ka horna la cadad wala xisaab oo markastaba aniga oo markaa asaga khaas ahaan mise shakhsi ahaan aanan kalgacayl la gooni aan u qabin laakiin iga muuqatay waan naftahani aad iyo aad oo hadduu mar uu kula gaaro balaaqadiisa fasaxadiisa waxaad is leedahay nin ka Soomaalisan inuusan jirin wax badan ma soo marnay markuu dhobley joogay markii qolyahan al-shabaabku la dagaalamay wuxuu dhanba iyo ka horaba marka anigu Soomaalinimadaasi iyo sharafta guud oo Soomaalida inay soo noqoto maan markii hore aan garab ugu ahaan jiray in kastaba hada Cabdiqaasim waqtigu soo bilaaway ilaa iyo kan hadda u dambeeyo farmaajo markaan danta Soomaaliyeed ka dhax waayay qofka asaga ahna waan u digi jiray ummadda Soomaaliyeed meesha danta Soomaaliyeed kama muuqatee khayaanaha ka socotay khayaanada siito ha loo foojignaado oo si fiican maaragtay ha laga dhowrsanaado marka haatan 5 sano meesha joogay 5 kilomitir ma dhaafsana magaalada waxa weeyaan hadda waa kana arkayso ciidamada Kenya lagu dilay Dhobley lagu dilay lagu laayay 9 intii bamba loo dhigay wada yar baa la furtay toos Kismaayo baa la tagay intii maxay badamadoodii oo maartay geedaha laga goranayo dhuxusha maartay la dhoofsanahay oo ay heshiis ka yihiin iyaga al-shabaabna waa lagu howlgalay wax ilaahay untii oo dan oo loo hayo
ummadda ay dadka meesha ku nool ma jirto okay kismaayo intaad ka soo tagtay ma imaan kartid afmadow iyo qoqaani saa doonto ma imaan kartid ilaa iyo dhowri saa doonto ma imaan kartid waxa weeyaan uu kala xiran yahay wadankii lama sifayn marka wixii bedelkii uun sifaynta lagu jiri lahaa oo ololay iyo daryeelihii ummadda iyo bulshada adeegooda guud iyo qaxootiga sidii loo rari lahaa oo loo dejin lahaa dhulkii oo beerihii wax soo saarkii loo qaban lahaa nabaad guurkii sidii loo ilaalin lahaa oo loo badbaadin lahaa dhirtii loo badbaadin lahaa wixii oo dhanba wax ilaahay intoo ka maqan ma laha waa mar ay la dagaalamahayaan xamar oo maaragtay ay leeyihiin aan loo ogolaaday imaaraadka inaan kismaayo aan dekada kismaayo ka karaynay iyo dekada boosaaso ka karaynayo wax kastaba okay iyo mar maaragtay ay dhuxushii dhoofsanayaan dhirtii 1000 sano jirtay 800 sano jirtay حتى أمين قوين سيدي مارتي يجو خشب هان وقدهيان وهاردwood و the most expensive wood you can find anywhere. hardwood هان ما قدهيان وحول بالغدهيان وحلو دفنا مراتب على متكان. مركا وحد مودا ماشي إنها تهي وحي أفك إنجليز كليها Scotched Earth Policy وترتر وحلا واحد كبوب كرتنا كبوب يضو وأنا وحبا أنا وهارن ولما الدجان ماشي قدام بيسيه كتجويان marka taana wax la fiirsan kara maaha taa waa laazim in sida ugu degdegsiya badal iska gaaro oo maaragtay dalkana la badbaadiyo dadkana la badbaadiyo okay aad u mahadsantahay